maalmihii dambe ee lasoo dhaafay ay sii kordhayso sheegashada madaxda maamulka Azania ee ku aadan inay hoos yimaadaan ciidamada iyo waliba saraakiisha ka howlgasha deegaanada Jubbooyinka ee la dagaalamaya maamulka iyo ciidamada ururka Al-Shabaab ayaa haatan waxaa soo shacbixay in saraakiil u hadashay ciidamada deegaanadaasi ka howlgala ay sheegayaan inaysan gabi ahaanba hoos tegin maamulka Azania ay si toos ah uga amar qaataan dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya waxaa warbaahintaas aad la soo xiriiray taliyaha ciidanka aaga Doobley ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Colonel Abbas Ibrahim Gurey wuxuuna faahfaahin ka bixiyay hadallada ku aadan in maamulka Azania ay sheeganayo ciidamadaas inay hoos tagaan ugu horreyn waxaan weydiin in arrintaas sharaxaad ka baxsho dowladda Soomaaliyeed baan lahay ciidamada Soomaaliyeed meesha laga ku soo tababartay dowladda saaxiibkeena ayaan lahay inta kale waxaan ka maqan Quraysh ciidan dowlad goboleed iyo asaas baan lahay horta ciidan baan lahay dowlad goboleed kala sabab hadda waxaan joognaa dalka Soomaaliya waxaa laga maarmaan in shacabka Soomaaliyeed uu raali ka yahay وهنا مثل الدولة تعمل شعب الصومال ذلك ما متابع حجوله تبدي هنا كلمة عروض أنت تقول لك العصر إيش أخير ملو marka laga soo tago inaad tihiin ciidan qaran arinta Azania ee ku aadan sheegashada deegaankaasi adinku waxaad leedihiin gabi ahaan wax ka jira ma jiraan oo haba yaraatay wax xiriir ka dhaxay ma jiraan idinkii maamulkaas dowladda shir oo xaqra ugu soo tababartay Kenya waa maadis weyn dadka loo soo tababaray waa loo joognaa shacabka aga joogno oo Soomaaliyeed maadaama ciidan uu siyaasad ka dhexgalay dadka Soomaaliyeed ee aan shacabka Soomaaliyeed ku nool madowna waxa saxeeba hadii xogtiisa xulaakiisa aruurinay gaalada kama aha hadda sidaan ka warhayno waxa haatan magaalada Nairobi lagu dabiibaya qaar kamid ah ciidamadii aad adigu madaxda u ahayd waxaana ciidamadaasi dabiibaya oo wakiil ka ah maamulka Azania arrintaas ma dafirsan tahay adigu Kenya hore waxay u sheegtay in maamulka Azania ay taageersan tahay ciidamadan ay laftigooda ay u bataqaana u tababartay adigu marka ma waxaad haysaa cadeen dhab oo dhanka dowladda mataqaana ka timid oo aad ku muujinayso in aad dowladda hoos tagtaan ee aad maamulka Azania iyo dowladda Kenya waxba aad ka amar qaadan waxaa ku raacay mar walba waxaa loo imaaday wasiirada dowladda Soomaaliyeed ka socda kuwa Kenya waa loo yimaaday ciidan gobol Soomaaliyeed waxaa ku raacay wax la yiraahdo xukuumadda ka amar qaadanaysa iyo laba hore وقرت أنكم وذاتين مركا ترياشي إذا ماذا الدجاج كاسي أزاني محاس كان مسنتين كورنيل عباس إبراهيم قري هذا واحد كم مثل سراكيش إذا ماذا الدجاج كاسي كسبان مدبر أي مامور كأزاني جبتاء وشقين إستا أذكر كل هالكاسي بلوين بس كسبان فيه هذا الكائن كأنك كسو يري محاك كلمة على سؤال كرا وحكى لهم حاضر رئيس البلد طبعا بدي سوى الله الله وسيرة الدولة كسره وشيء حاضر أيوة الحكومة أيوة مش طريق الرجال يقول قاعدة وصلنا عليه أنا بقول لك الدولة أوكي وياي مركا إنك أريد حاجات كسوغن تاعي جارهان دقيقة كسوغن تاعي أنا حكون صورة هذا حاضر رئيس نوري رقصورة واقر تفول قال لي عاد ودين الدولة سنة الدولة في الجبوين كجبيهم بقعته كسر جلسان حاجة مريان. الدولة سياد واجب الدولات والدولة معاه كل رئيس جنس وجمالها أنت متعب المواضيع إذا ما نذكر فكانوا عادية لا إلا يلحق كل رئيس جنس لا وقت إلا جارو. وقدمتي أنك يعيدن كقصة قيبك من الدولة كجدو. sida ceelwa iyo garbahari maxaa xiriirooda kala dhaxeeya ma isku target baatiin mise waa kala duwantiin oo kala mabda duwantiin tamaa ila kulbiyo ila daaw isku kaayibaan isku xalin waa isku fasada waa
أيوة قلت أدي أدو ما استطاع كاسوه كنا العباس إبراهيم قولي وخدك تلفونك يقول رمي أسوأ قصة دقمدا دوبلي قبل كجبة وصي وأي دنبي الله صودا في سيكر لسوشيال كذا مدحنا مامورك أذاني يكون أذاني هو سيمادان إذا ماذا يولي بسراكيسا كهو كشا دجنada jubooyinka ee la dagaalamaya maamulka iyo ciidamada ururka al-shabaab ayaa haatan waxa soo shaabaxay in saraakiil u hadashay ciidamada deegaanadaasi ka howlgala ay sheegayaan inaysan gabi ahaanba hoos tagin maamulka Azaniya ay si toos ah uga amar qaataan dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya waxa warbaahinta saagal la soo xiriiriyay taliyaha ciidanka aaga Dhobley ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Colonel Abbas Ibrahim Gurey wuxuuna faahfaahin ka bixiyay hadallada ku aadan in maamulka Azaniya ay sheeganayo ciidamada Soomaaliya hoos tagaan ugu horreeyna waxaan weydiinay arrintaas sharaxaad ka baxsho dowladda Soomaaliyeed baan ciidamada Soomaaliga meesha ku soo tababartay dowladda Soomaaliyeed inta kale dhacdo waxa ka maqan waxaan qoraysa ciidan dowlad goboleed oo ay taasoo dhanahay horta ciidan baa ciidan dowlad goboleed dowlad goboleed kala sabab hadda waxaan joogaa dalka Soomaaliya waxa laga marmaan shacabka Soomaaliyeed oo haalinta yahay oo marka dowlad goboleed ka mid ah shacabka Soomaaliyeed haalinta yahay ma la tabacan joogna xubnihiisa xoolaha marka aroorlay intaas oo hadda maxaa soo sheegay malaw marka laga soo tago inaad tihiin ciidan qaran arinta Azaniya ee ku aadan sheegashada deegaankaasi adinku waxa leedihiin gabi ahaan wax ka jira ma jiraan oo haba yaraatay wax xiriirooda ka dhaxay ma jiraan idinkii maamulkaas dowladda shirkii oo xasra ugu soo tababartay Kenya ilaa maadis way dalka loo soo tababarayna waa la joognaa shacabka aga joogna oo Soomaaliyeed maadaama ciidan uu siyaasad ka madaxbanaaya dalka Soomaaliyeed ee aanimad shacabka Soomaaliyeed ku nool maadaama waxa saxeexa hadii xogtiisa xoolahiisa aruurinay saalada kama aha hadda sidaan ka warhayno waxa haatan magaalada Nairobi lagu dabiibaya qaar ka mid ah ciidamadii aad adigu madaxda u ahayd waxaana ciidamadaasi dabiibaya oo wakiil ka ah maamulka Azaniya arrintaas ma dafirsan tahay adigu كان هو waxa uu sheegtay in maamulka Azaniya ay taageersan tahay ciidamadan ay laftigooda ay u taqaana u tababartay adigu marka ma waxaan haysta cadeyn dhab oo dhanka dawladda ma taqaana ka timid oo aad ku muujinayso in aad dawladda hoos tagtaan ay maamulka Azaniya dawladda Kenya wax war aad ka amar qaadan waxa ku raayay mar walba waxa loo imaaday wasiirada dawladda Soomaaliyeed ka socdo kuwa Kenya waa xilka waa loo yeelan ciidan badan oo Soomaaliya waxa ku raayay wax la yiraahdo xukuumadda oo ka amar qaadanaysa siyaasiyiin laba oran وقدرت أقولكم أتاتين مركا تلياتي عيدا مدى الديقان كاسي أزاني محاك كأمن فنتين كورنيل عباس إبراهيم قري adigu waxaad ka mid tahay saraakiisha ciidamada deegaankaas ku sugan muddo badan ayay maamulka Azaniya jirtaa oo shaqaynaysa adinkuna halkaas bilooyin baad ku sugan tihiin hadalka iminka idinka soo yeeraya maxaa keenay baa la oran karaa waxa keenay maxaa kala laayay dibadda dalka dibaddiisa oo laga hadlayo oo sina dowladda kaasana uu sheegay maxaa kala ciidamada inuu xukumo ayagana ku shaqaynayaan oo kaasana ugu soo dhacay اوكي واياي marka iminka adiga xageed ku sugan tahay gaar ahaan deegaanka ku sugan tahay waxaan ku suganahay dadka kula Dublin oo ku suganahay waa garta howlgalladii aad wadeen dowladda inaad deegaanka Jubbooyinka gabi ahaan gacanta ku soo galsan xagee marayaan aad u wanaagsan
ugu dambeyntii adinka iyo ciidanka ku sugan qaybo kamid ah gobolka Gado sida Ceelwaaq iyo Garbahaarey maxaa xiriirooda kala dhaxeeya ma isku target baatiin inta waa kala duwantiin oo kala mabda duwantiin ama ila kullu ila dal isku qaybana isku xalina waa isku fasada waa ay waagat aad iyo aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey oo khadka telefoonka igu ramayay asagoo ku sugan degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose